inta aanan u gudugelin mawduuceena ugu horeyntii waxaan doonayaa inaan wax ka sheego ugxaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala haweenka waxa uu ku beeray ugxaamadaasi hadafkoodu waa in la bacrimiyaa xilliga uurka sidaasna haweenka uur ku qaado ma ahan sida ragga oo kale maxaa yeelay ragga mar walba jirkooda wuxuu soo saaraa biyo ama shaabe cusub ayuu mar walba sameeyaa balse dumarku way ka duwan yihiin oo waxay ku dhashaan ugxaan kooban jirkooda awood uma lahan inuu sameeyo ugxaan cusub dumarku markay dhashaan ugxaan sidoodu waxaa lagu qiyaasaa inay ku jiraan 1.5 ilaa 2 milyan oo ugxaan gabadha ilaa ay ka qaangaarayso bil waliba 11,000 ugxaan ayay qasaarinaysaa ama ay dhuminaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ugu talagalay dumarka dhanna way ka sameyn yihiin gabadhu markay ay qaangaarto waxa u soo harayo qiyaas dhan 300,000 in ka yar 500 kaliya ay ugxaansiduhu soo deenaya oo la bacrimi kara ama caado isku bedeli kara inta gabadha ay ku jirto marxaladda fertileka ama dhalmada ay ku jirto mar walba ay haweeneydu sii weynaato ama da'deedu sii kordho ugxaantu way sii yaraataa ugu dambeyn waxay gashaa marxaladda menopause loo yaqaan ama dhalmo-joojiska taasoo meesha ka saarayso in ay caadada ay dhamaato waxa isweydiin mudan waa maxay dhalmo-joojinta ama dhalmo-goyska dhalmo-goyska ma ahan cudur waa xaalad dabiici ah oo gaar u ah dumarka soo marta qof waliba dumar ah marxaladda marka ay gaadho inta badan waxay imaadaa marka 40 ay gaaraan ama wax ka badan waa qofba sidoo ilaahay subxaanahu wa tacaala qeyrkiisa ugu maneystay mararka qaar waxay dhacdo inay soo degdegto howlgabnimada dhalmada oo haweenta iyadoo aanan gaarin da'deeda ama waqtiga ay dhalmo-goonaysay ay dhalmada ka istaagto sida qofka laga saaray ugxaansidaha laga saaray ama ugxaansiduhu in shaqadii uu joojiyo ama ugxaantii shaqadooda ay joojiyo ama buray kaga soo baxdo ama in ay jug ay gaadho xubinta taranka jug ay ka gaarto dhammaan waxay sababi karaan inay soo degdegto howlgabnimada dhalmada sidee ku garan kartaa inaad gaartay xilliga dhalmo-goyska ama howlgabnimada dhalmada dumarka marka ay ka baxaan marxaladda dhalmada ay u gudbaan marxaladda dhalmo-goyska jirkooda waxaa ku yimaada isbedel xoogan maxaa yeelay hormoonada iyo idilkaada ayaa la raacsiinayaa inta ay ku jirto marxaladda howlgabnimada dhalmada balse waxaa jira calaamado lagu garta howlgabnimada dhalmada dumarka ay isku arkaan marka ay gaaraan xilliga dhalmo-goyska calaamadahaas waxaa ka mid ah dhidid habeenkii ah jirka olola ama kuleel ka soo baxay jirka hurdo xumi daal xanaaq wadna garaac sidoo kale murqaha iyo kalgoysyadu xanuun ku yimaada damaca galmada oo yaraada xubinta taranka oo qaleel noqota kaadida oo ay xakamee weysay lafa xanuun ama lafa beel sidoo kale jirkaaga waxa ku yiraahda calciumta vitamin D-ga qof walba ma ahan inuu calaamadahan dhan uu la kulmayo oo waxa laga yaabaa qaar ka mid ah calaamadahan inaad isku aragtid waa maxay dhibaatooyinka ku yimaada haweenka marka ay galaan marxaladda dhalmo-goynta dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah lafa beel ama lafa xanuun ayaa ku yimaada maxaa yeelay calciumta vitamin D-ga ayaa jirkooda ku yaraanayo cudurrada wadnaha timoho ka gurma ama timoho ka daata hurdo xumiya ku imaanayso aragga oo xumaada sidoo kale awoodda murqiyo yaraada sidoo kale qaarkood waxa ku yimaada duuduub ayaa ku yimaada kaadida oo aad xakameyn weyso sidoo kale waxay dareentaa xanuun xilliga gogasha ah fadlan haddii aad isku aragtid calaamadahan la xiriir dhakhtarkaaga haddaba si aad uga hortagtid ama aad u yareysid dhibaatooyinka yimaada xilliga dhalmo-goyska waa inaad qaadataa talooyinkan waa inaad cuntaa cunooyin isku dheelitiran oo ay ku jiraan waxyaabaha jirka u baahan yahay sida vitaminiska proteiniska magnesium iyo guud ahaan waxyaabaha uu jirka u baahan yahay sidoo kale waa inaad qaadataa hurdo kugu filan ugu yaraan 8 saacadood habeenkii si aad hurdo fiican u heshid waa inaad iska yareysaa waxyaabaha hurdadaada ee factor ka dhigi kara sida kofeega oo kale maxaa yeelay maadada caffeine-ka ku jira stresska waxyaabaha muqaadaraadka sida shiishada sigaarka iyo qaadka waxyaabahaas waa iska ilaalinaysaa sidoo kale dumarku marka ay galaan marxaladaas waxaa ku yimaada qalal xubinta taranka ah marka waxaa isticmaalaysaa vaginal lubricant ayaa isticmaalaysaa waa waxyaabaha qoya xubinta qoyo waaye marka iyadoo waxaa jiraan oo bilaa dhakhtar isticmaali kartid meelaha farmasi ayaa ka soo iibsan kartaa balse waa in aysan ku jirin glycerin-ka waxaa jira vaginal lubricant ay ku jiraan maadada glycerin-ka kuwaas ma wanaagsan waxay keenaan cuncun iyo hur ayay keenaan sidoo kale dumarka markay marxaladaas gala waxaa ku yimaada kuleel ama jirka olola marka si aad ugu hortagtid kuleelkaas waa inaad iska ilaalisaa waxyaabaha kicin kara kuleelka sida cunooyinka basbaaska leh maadada caffeine-ka stresska alcoholka
walwalka waxyaabaha muqaadaraadka sida shiishada sigaarka iyo qaadka intaba yani waxay ziyaadin karaan hurka ama kuleelka ayay ziyaadi karaan sidoo kale kaadiheysta awoodoodu waa yaraataa marka si aad ugu hortagtid ama waxa sameynaysaa jimicsi loo yaqaan Kegel exercise ayaa sameynaysaa sidaan oo kale ayaa loo sameeynaa maalin waliba ayaa sameynaysaa 20 daqiiqo sidoo kale dumarka waxa ku yimaada xiliyadaas markay galaan timuhu ayaa ka gurmaan ama timihi ayaa ka daato marka waxa isticmaalaysaa waxyaabaha nafaqada dabiiciga oo timaha yani dib u soo celshay ayaa isticmaalaysaa sidoo kale jirka waxa ku imaan kara isbedel ayaa ku imaada oo duuduub ayaa ku yimaada jirka ama wrinkles isku imaada haraga marka waxa isticmaalaysaa anti aging cream ayaa isticmaalaysaa ama creamada oo naturalka oo yani ka hortagayo duuduubkaas sidoo kale waa inaad sameysaa jimicsi joogta maxaa yeelay dumarku markay gaaraan marxaladaas waxa ku yimaada wadna xanuun ku yimaada sidoo kale lafaha osteoporosis ama xanuuna lafaha ayaa ku yimaada yani qofka hadii uu jimicsi badan sameeyo wax badan ayay ka caawinayaan